السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الملك استون قدا ونيستان كسر دواد ورئيس جار والله لأن مدحونها دليرة جمهورية الصومال لأن عمر عبد الرحمن عبد الله عيناش أو كلا وريكتو كسمة قار كم إذا قليه سي وسيرة وحانو كبدل وسيرة جبيهان بكلا شاندين وكلا تشذي قار كم إذا لا تلياشي سو قار كايس المرأة أنتنا مركو هذا جاي قضب الدورة أو أي كم ذيهين qodobada uu inoo xusi doono hadduu allaha awood la ogolaado kow wasiirka maaliyadda waxa uu ku bedelay Cabdiraxmaan Bidixo laba wasiirka beeraha waxa uu ku bedelay Mubaarak Xasan Faarax saddex wasiirka biyaha waxa uu ku bedelay Ibrahim Ali Bagaase afar wasiirka arrimaha dibadda waxa uu ku bedelay oo ka dhigay Cabdiraxmaan Diiriye Ismaaciil Cabdiraxmaan Furro shan wasiirka deegaanka waxa uu ka dhigay Gobaad Jooho sideed wasiirka xoolaha waxa uu ka dhigay Maxamed Jiro sagaal wasiirka gaashaandhiga waxa uu ka dhigay Cabdikariin Oberton toban maareeyaha dekeda waxa uu u magacaabay Muraad Cali Cabdi si kastaba ha ahaatee madaxweynaha ayaa waxa uu si toos ah kala shaandhayn ugu sameeyay golihiisa wasiirada balse waxaanu si toos ah ugu weydiin doonaa su'aalo ku salaysan sababta ku kaliftay inuu wasiiradiisa abaar labadii iyo badhkii habeenimo uu kala wareegto ku sameeyo madaxweyne maxaa ku kalifay arintan aad wareegtada ku sameysay gabi ahaanba golahaagii wasiirada qaar ka mid ah waxay ugu kalifay inaan wasiirada bedelo wasiirada aad u shaqeeyeen marka xilku wareegto marka qodobada weegay بيبي نور الفرقة 77 waxaan leeyahay wasiirada qodobada soo yeer wadaagsaday marka wareegto wisi socodota الفرقة waxaan u eegaadana qodobka loo yaqaano alif ba taasa jiib xaqa waxaan u eegay mar inaan wasiirada ay bedelay